waxaa markan hadda aad maqlaysaanin muusikada loo yeeranayo ra'iiskii ku-meel gaarka ahaa oo jamhuuriyadda Soomaalida ee soo galaya baarlamaanka ayaad maqlaysaanin raggii nuwaabtaha oo dib baarlamaanka ku jirayna waxay fadhiyaan baarlamaanka isaga ayay sugahayaan halkii militarigaana isaga ay muusikadii u qaadahayaan hadda ayuu soo galayaa saaka baarlamaanka sidii barnaamijka loogu tiilay waxa la isugu yimid in ninka ra'iiska oo ku-meel gaarka ah markuu yimaado baarlamaanka reer ku jira iyagoo wada jira baarlamaanka ummadda in ay dhaartaaniin markii ay dhaartaaniin in markaa kadib la doorto ninkii ra'iiska ahaa oo ku-meel gaarka ahaa markaa kadib baarlamaanka ummadda isagoo wada jira in lagu dhawaaqo wada jirka Soomaaliya iyo Somaliland haddana buuqa iyo muusikada iyo waxa aad maqlaysaanin iyo damaashaadka dhacaya waa ra'iiska ku-meel gaarka ah iyo baarlamaankii ummadda oo wada fariisanaya oo wada jira baarlamaanka raggii nuwaabta oo baarlamaanka ku jiray hadda ayuu soo galay oo fariistay oo isu diyaarinaya hawshii in lagu dhawaaqo waa maalin weyn oo farax badan waa maalmihii aan sugaynay waxaanu rajaynaynaa maanta in wixii hawl ahaa oo labada dal oo Soomaaliya israacooda ku saabsanaa in maanta ay dhamaadaan waxa baarlamaanka nooga muuqda nuwaabtii ka timid Somaliland oo la fadhiya nuwaabtii Soomaaliya baarlamaanka korka sare waxa fadhiya raggii dibadda ka yimid oo iyo raggii journalistayaasha ahaa iyo raggii wax masawirayay iyo gidi oo iyaguna ka qaybgalaya oo fiirinaya oo eegahaya Soomaaliya maanta arrinta weyn oo ka dhacaysa baarlamaanka meeshiisa koreeto ayay wada fadhiyaan gidi indhaha ayay nagu wada hayaan jiro nuwaabtaha gidi hadda wada istaageen waxay wada istaageen ra'iiskii jamhuuriga ahaa oo ku-meel gaarka ahaa oo xalayto qaatay oo ku dhawaaqay qarnimada Soomaaliya ayaa soo galay hadda ayaa baarlamaanka fariistay hadda ayaa baarlamaanku wuxuu bilaabaya hawshiisii sidii la isugu dir lahaa Soomaaliya iyo Somaliland iyo markaa kadib sidii loo dooran lahaa ra'iiskii jamhuuriga ahaa oo ku-meel gaarka ahaa haddana ra'iiskii baarlamaanka iyo ra'iiskii jamhuuriyadda ku-meel gaarka ahaa ayaa wuxuu cadeeyay in fadhigii uu furan yahay waxaa hadda istaagay ra'iiskii jamhuuriyadda Soomaaliya wuxuu hadal u jeedinayaa ragga nuwaabtaha oo baarlamaanka isugu yimid oo ka koobma nuwaabtii baarlamaanka Somaliland iyo nuwaabtii baarlamaanka Soomaaliya hadda ayaa waxa la bilaabayaa hawshii iyo ku dhawaaqidii lagu dhawaaqi lahaa israaca Soomaaliya iyo hadratu nuwaab wal xasuusantihiin in aynu isku raacnay halakan laga baasgareeyay xaggaasna laga baasgareeyay in maanta intii ka bilaabata wadanka Soomaaliya iyo Somaliland mid ay isku yihiin يا دقيقة كل شيء يا استاجتين الصعبسكا وحنو قادنا يا سيدي أنو لجديد ويا هيد إن دقيقة داس أنو ضحدنا أنو صور دافني أسمبليغا عضوغا أعضاء ماشي تنفرددا إن يهين أعضاء أسمبليغا عامكا أو وطنيغا أو جمهورية صوماليا waxaa loo dhibtoon yahay haddaba inaynu bilow